بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وأنا ونكسن أصحاب قالقة أكون سودا وهذا يوتيوب كي شكرا لو كنت أسمر كلا فيديو عصب أياكو كل منا هذا جمعك عصب تهاي فيديو أنا يكي كوري وحكا عسنا أنا سبسكرايب يسارتو هذا هو رجعتنا وما سنت هاي لايك نوصل فيديو نشارك كريو أصحاب هذا اللي وذاك سي أمهلنا أصحاب فربضن ونوصل بيرتو ونكون هسنتين داوشة فيديو يا شيخ انت انا ما فيديو ان بالله ونسوي كران نقول صلى رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. sheekada maanta idin wado waa sheeko mar dhow dhacday waxa ay dhacday 2021 markay taariikhdu mareysay waxayna ka dhacday wadanka Masar xaafad la dhaho Kafrat Dawaar waxa ku noolayd gabar dhalinyaro ah oo iyaduna 22 sano jir ah la magaceeda la dhaho Najla waxay ahayd 22 sano jir waxay baranaysaa jaamacad kasoo way shaqeynaysaa sidoo kale gabar waxay aad u furfuran oo bashaashada dadka ay jecel yihiin dariska ardada jaamacadda qof kasta oo waxay ahayd dadkan iska furfuran oo qof kasta soo jiidashada qof kasta oo iska jecel yahay ay ahayd sidoo kale Najla xataa ciyaalka xaafadda waa ay jeclaayeen waayo markasta ay wadada soo marayso ilmaha aragtay waxay siin jirtay shukulaato waxay buufimadan iyo waxyaabaha ilmaha ku ciyaaraan ay siin jirtay dadka dhan waxay ahayd qof ilaahay qalbigooda u galiyay wanaag oo waxay ahayd qof dadka dhan ay jecel yihiin sidoo kale waxay qof caan ah oo social media ay isticmaali jirtay waxay lahayd bar Facebook ay dadka ka caawin jirtay tabarucaadka ka soo aruurinaysay dadka markay ka soo aruuriso dadka u baahan ay siiyay sida markay dhalinyarada hadda social media ku jirto qalad ay sameeyaan inay qofka u tagto xogtiisa soo weydiiso kadibna ay dadka wax ugu weydiiso kadib wixii la siiyo ay dadka saab ku siiso sidaas ay sameeyeen jirtay Najla waxaa jirtay gabar ay saaxiibo ahaayeen oo la dhaho Nurhan waxay isku barteen dhinaca Facebook maadaama Najla ay mar walba soo dhigi jirtay Facebook fiidiyoyaashaas iyo iyadoo sawiradeeda waxyaabahaas ay daawan jirtay ayadana waxay kamid ahayd daawadayaasheeda maalinta dambana waxay go'aansatay inay xiriir la sameyso oo ay la saaxiibto waxay u soo dirtay message oo ay ka soo codsatay cod TV way uga jawaabtay maxaa la dhahaa message-kii way isbarteen labadooda markay isbarteen waxay noqdeen dad aad isku dhow oo saaxiibo ah waliba isku xaafad ay deganayeen xaafadaha markii la eego aad u maysan kala fogeen la guriyooda aad isku dhawaayeen Najla waxay ahayd cagsiga Nurhan cagsigeeda ahayd laana Nurhan maadaama qof bashaasha furfuran shaqaysata maxaa la dadkooda jecel yihiin tan kala bedelkeeda shaqo meeseen mana furfurnayn dadkuna ma jecleen qofkii arkaa u dhaho markii la qoftaan amal qofba ka sigtay ahayd Nurhan waliba waalidka dhalay Najla iyo family-ga asxaabta kullu xidhi jireen gabadhan ka dabahar mana ajabin wajigeeda kamaana helin ka dabahar ay jireen laakiin Najla waxay dhigi jirtay hadaa baran lahaydeen waa fahmi lahaydeen inay tahay qof wanaagsan gabadhan qof wanaagsan qof xun maaha oo qof aad u wanaagsan mar walba saasi ku dooda jirtay maadaama waalidkeeda aanay jeclayn oo aanay ka helin mar walba leeyihiin mar walba gabadhan ka dabaharna Najla iyada aad jirtay guriga Nurhan ayada u tagi jirtay ayada booqan jirtay meel walbana way isku raaci jireen qofkii Najla arko Nurhan waa inuu arkay waay sidaas Najla marka mar walba waxay u sheegi jirtay inay jeceshahay inay saaxiibteeda adduunka u jeceshahay ay tahay xataa waalidkeeda ay ka jeceshahay laakiin taas been ahayd adduunka u necbayd حقد حاسدنمو أجرت كذا كقرصنا سعاد نو وجم السير جرت ما دام كبرنا يتقف بشاشة بتكلم يعليهن عن محلها شقي ستو كبرنا مركا نجلة وحاجة وشقة سنجرت شقة إذا أسكو مارين جرت مركا مالك شقة جرت ماشي كل شقة جرت وحي هاد السبيطال ونختار إن راعي وشقة أي لا شقة جرت نختار كاس مركا بش العقدة شقة ستو كسكو وحاجة جرت ما نتذك إما هذا العقدة لقى أروي وحير وكسين جرت سمعناها اسمه سيدة برتو ما دابت قفز كذا اللي يراعن العقدة سي أروسان جرت وحي هذا بش وحس مركا أروسته مرة بوحي السوق جرت الذهب markatiin soo gado mar faraanta soo gado mar dhaga soo gado marba wixii rabtay soo gadan jirtay waxay la wadaagi jirtay saaxiibadeeda oo ay u sheegi jirtay in maanta inta aruursatay in ka soo gadatay in ka soo gadatay tan kale marka Nurhan maadaama iyadu waxaas haysanin aaday u xanaaqi jirtay macnaha ma isdareensan jirin laakiin way ka xumeed ala kulli xaal waqtigu wuxuu socday waxa la soo gaaray 2021 maalin ku jirta maalintaas oo ay Najla waxay rabtay jaamacada diyaariso imtixaanka jaamacadda waxayna u baahatay fasax 2 bilood si ay iskaga diyaariso imtixaanka jaamacadda dhakhtarka way maadey waxayna ka dalbatay in uu dhakhtarka fasax siiyo si ay casharada jaamacadda iskaga akhriso oo aysan imtixaanka iyo waxaas aysan ugu dhicin shaqada inaysan awoodeynin dhakhtarka wuxuu ku dhahay dhib ma lahan oo ku fasaxa aniga laakiin bishardi waa ina booska qof ii keentaa oo dhahay ana hadda mar raadin kari markuu wuxuu dhahay qof booskaaga ii keen
najla waxay dhahday intaas kaliya diyaar waaye dhahday qofkii ugu horreeyay marka maskaxdeeda kusoo dhacay wuxuu noqday Nurhan waxay wacday Nurhan waxay dhahday waxaan rabaa inaan waxaan ka rabaa dalab yar maanta inaa ii fulisid muxuu yahay dhahday waxay dhahday احتحام ربا إنا قلو احتحام اسك ديارين ربا شقة دي دكتوركي نساس ugu xujiyay waxaan rabaa ina booskayga sii joogto labada bilood oo imtixaankii iska diyaarnaa imtixaankii inta galay najla waxay dhahday wallahi dib ma lahan ad daraada u tagay dhahday shaqada adiga maadaama adiga iga codsatay ad daraada u aaday dhahday shaqada okay way dhahday najla waxay keentay Nurhan booskeeda shaqadii sidii u bilaabatay Nurhan waxay gashay 2 bilood oo baashaal ah dhaqaal ahaan isku bedeshay day waxay bilowdeen inay iyaduna waxay rabtay SMS ay tasarrufto macna waxay rabtay ay soo gadan karto oo shaqo fiican haysato sidoo kale dhakhtarkii markuu siiyay lacagta bisha la hore ogeeday lacagtii daily ahayd markuu siiyay way yaabtay maxay tahay dhakhtarka lacagtan wuxuu lacagtan waa wax yar iska dadkaas waxa saasan dadka ugu saaciday dhakhtarku wuxuu waa dhakhtar aad u fiican madaxay qabsatay dhaqaale way isku toostay labadaas bilood baashaalkeeda iska gashay maadaama ay baashalkeeda iska gashay laakiin de shaqadan maaha shaqadeeda 2 bilood kadib waa ay ka tagaysaa taasay mar walba soo xasuusato way xanaaqi jirtay waxay dhigi jirtay way qoftaan wax walba wanaag iyada maxay u haysataa aniga way aan u heli karin shaqadeedan oo kale waana shaqo yar oo iska fudud oo basiid awal way ka xanaaqi jirtay marka si waqtigu u socday waxaa la gaaray maalintii najla ay kusoo noqon lahayd shaqadeeda imtixaankii u soo dhamaaday 2 biloodna way soo dhamaatay waxay imaaday goobteedii shaqada najla u imaaday najla hage siisay waxay dhahday welcome shaqadaada kusoo dhawow laakiin wajigeeda waxaa laga dareemay xanaaq iyo waxaa laga dareemay macnaha inay isku faraxsan laga dareemay heer ay najla fahantay dad maxaa ku daaray maanta waxay dhahday maye waxoogaa waa iska yara xanuunsanahay oo saas camaladi way isbaasbaasisay sidii najla ay shaqadeeda u bilaabatay laakiin gabadhi waa ay baxday shaqadeeda markay ka laabatay way u qaadan weysay in shaqadaas oo noocaas oo aadka u fudud aadka u fiican oo dhaqaalaha fiican la qoftaan haysato idana aysan haysanin dadka qaar xaasida moogtaa igu siisin la dhahay way isla haysiisa waxay istirse kaaga qaadi kartaa shaqadan adiga wixii ay u cuntay waa waxayna go'aansatay in ay shaqadan ka saarto oo ayada ay booskeeda gasho ayada u qoor weysa booska waxayna ku fikirtay inay raadiso xal najla booska uga buriso iyada ay shaqadaas u gasho si marka lagu fahmin waxay istirqaabkeen shaydaanka cabaar oo waswaasiyay waxay wacday wiil ay wax isku ahaayeen oo maxamed la dhaho ayay wacday waxay dhahday iimo maxamedki markuu imaado wuxuu u imaaday Nurhan oo oynayso furtuxu dhaxmaha kugu dhac waxay dhahday najlo ayaan dhibana u ahay dhahday maxaa ku dhac waxay tiri faraanti iyo katiinad ay haysatay iyo wixii inay ka qaadatay mideeda kalena waxay tiri ninka khadiibkayga isoo wacay wuxuuna ii sheegay dhahday in macnaa ay kala tagayaan sabab marka ayna wuxuu ii sheegay tiri wax kasta waxa ii sheegtay ku dhahay tiri najla maxay taa waxa ay ku sheegtay markaan dhahay oo aan baryana wuxuu igu dhahay wuxuu ii sheegay waxa ii sheegtay ugu dhahay dhahday khadiibkayga in aan hortay niman badan ku qadiibteen oo lagu soo ay ka tageen aan tahay qof macnaa dhaqan xun oo dhalinyaro badan xiriir la leh inaad tahay saasoo isha weyn iga tageen wiilku wuxuu xanaaqay wuxuu dhahay masaasay ku dhahday ha marka waxay dhahay waxaan rabaa inaa isaacido hay way waa ku saacida markii u sheegatay oo ay dhahday qadiibkii iga tagay oo najla igu dirto dhahday niman ay saaxiib la tahay oo niman hore ka tageen waxaasay u dhahday wiilku wuxuu dhahay waa ku saacida maxaa sameynaa asaga ma fakarayo marka shaxda markay dageen waxay shaxdaas ahayd marka in ay tagaan meesha dahabkii najla Nurhan waxay tiri dahabkayga wuxuu ku jiraa qasnada oo lacagta lagu aruuriyo meesha reception ku jira dahabkaas waxay tiri ka soo qaadanayna mid kalena waxay dhad maadaama ay dhibaato u geysanahay qasnadaas lacagta lagu aruuriyo ana soo qaadan dahabkan waa ka soo qaadanayna lacagtana waa ka soo qaadanayna si dhakhtarka markuu imaado intuu ugu qeylay lacagtii markii la dhaho inay xadda la ogaado saas lagu buriyo ayada saasan sameynayna ay dhahday okay way u dhaw ku saacida u dhaw wiilkii waxay qorsheeyeen maalin ku ballameen inay maalintaas qorshaha fuliyaan maalintaas waxay ahayd maalin dhakhtarka uusan joogin ay ugu soo aaday dhakhtarka maalin uusan joogin laakiin isbitaalku uu furan yahay wuxuu u furan yahay dad imaanayaan way isdiiwaan gelinayaan si berri ama berrida dhakhtarka markuu imaado ay ula kulmaan macnaha dadkii la siiyay diiwaan gelina najla bisa joogtay dad u imaanayeen way qoraysay lacagtay ka qaadaysay dadkii si diiwaan gelinaysay oo dhakhtarka u baahan ballanaysi dadkii ballan qabsanay bay ballan u sii qabanaysay waxaa soo gashay Nurhan oo imaaday Nurhan markii uu imaaday Nurhan markaas ay u imaanayso waxay wadataa dharka najla dharkeeda ay wadatay najla way faraxdahay seeteeda ku qosashay waxay dhahday dharkayga markaa gashatay aniga waa iga qurux badnaatay dhahday ma sha Allah haa dhahday iska qosashay gacmaha marka waxay ku wadaa najla
laba cabitaankeedana waxbay ugu soo dartay way u keentay marka waxay dhahday cab laakiin najla way diiday waxay tiri ma cabaay cabitaan igama hayso ani meesha u saartay cabaari xasuus waxay dhahdaa cabitaanka cab haba waxay dhahdaa iyadana ma rabo haba waxay dhahdaa cabitaanka cab way soo xasuusinay iyadana waxay dhahdaa ma rabo wiilashiya soo socdaan marka wiilkii maxamed ahaa asna wuxuu la balamay wiil kaleeto oo magaciisa la dhaho axmed wuxuu dhahay waxaa lagu siinaa 500 oo giniya lagu siinaa lahay gabadha sheekadaasna la fudud lacagtaasna la soo xadinay wiil asna bajaaj la waa bajaajka banaanka soo dhigtay labadii wiil aa soo galeen marka ayada najil hab ay dhahayso marka balanta waxay ahayd in cabitaankan siiso oo ay suuxdo markay suuxdo wiilashan imaadaan markay wiilasha imaadaan lacagtaas iyo dahabkii wax isla xado saas oo qorshaha najla bi mise cabin oo markasta gabadha way xasuusinaysaa waxay dhahaysaa cab ayadana ma aysan cabin waxa soo galeen marka labadii wiil oo isdhahay mindha xilligan way suuxda laakiin bi ma cabin ba waa marka labadii wiil markay imaadeen waxay dhahday waa in qorshihii inay bedelaan way samaha oo xaar inay suuxdo mana suuxin qofta marka waa in qorshihii la bedelaa qorshihiisa u bedesho marka Nurhan halkaas camal fariisata telefonkeeda fiirisay marka telefonka wiilka soo galeen waxay dhahday wiilashu waxay dhahday waxaan rabnaa in la diiwaan geliyo waxay tiri sukar rasidka idin soo saaray dhahday inay qorto magacooda waxaas ka dib rasidka u soo saartay rabtay intay sambuuxi qorinbo bay waxay dhahday sabax allah loo xawaan ku soo qof maxay camal inta iska waxay tiri kaal waxaan ku sheegay dhahday Nurhan dhahayso najla kaal waxaan ku sheegay hay ii sheegay maxay ii sheegay rabtaa waxay inta kuugu ma sheegi kareen dadka hortooda marka kuugu sheega war muhiim oo walwalkiisa wato waa kaal gudahan galina waa ku sheegahay markaas ay dhahday may ii sheeg hadda meesha waa faaruq reception-ka kaliya jooga mana ka tagi karay ii sheeg may dhahday gudaha kaalay qolka dhaqtarka galena kaala warkaan ku soo sheegay warkan kaala ila tali kaala warkaan la baayay saxanaajinayso Nurhan wayna xada wax tirahay waayay suuq adadka u shaqeeyay markay baxaan kadib may tir hadda soo istaag way soo istaajisay way soo istaagtay iyadana qolkii gashay qolkii markay gashay qolka dhaqtarka ay galeen message kaanu ii soo diray arag ninkii qadiibkayga muxuu ku leeyahay war yar oo markino iska basiido xataa meel kasta lagu sheegi karo macnaba aan lahayn wax dad laga qariyo xataa shaarica joogta xataa la sheegi karo beetirsan isaan u leeyahay ma intaas kaliya ay ka tagay tarwaab iga nixisay wayna soo baxday wax markaas isku dad inay celiso maya maxaa u bixi warka wali maana dhamaynta ma dhamaystirin ay dhahday sugsuga tir hadhowtii ay sheegaysay marka albaabkii ay furtay bay waxay aragtay labadii wiil oo qaanadii taagan oo wax ka bixina qaanadii maxaa dhacay dhahday ku soo baxday oo qorsho waxta waxay isdhahaysay gudaha cabaarku hay nimankaas ka bixiyaan sanduuqa lacagta kadibna soo baxdo wiilashii bixeenbo ha soo baxday sidii tuugay ahayn saas camal rabtay inay dhahdo laakiin najla way badiday boqolkii inay ku nagaato waqtigeedana waa uu socday akhay way qolkii ka soo baxday waxay aragtay nimankii maxaa idin ku dhacaaday ay tiri way ku soo boodeen inta qaylasay inay maagtay untay dhabka siiyeen afkeeda naqaskii ku dhajiyeen runta markay qabtaan hal mar uga foqay waxtiraayga ma iga celisay najla iga Nurhan iga celi wiilasha muujadada Nurhan ma iga la celisay furnusa Nurhan ayaan maxsandii waaba leedan qabta tuugnimo wala idin ku qabtay daliil ka tagina waxay dhahday ma iga celisay Nurhan markaas ay iscelisay waxay tiri adduunka adan ku nacay anaan rabay dhahday inaan ma arkino aan shaqadan booskaaga in la wareegaan raba booskaaga igala wareegtay adduunkana adan ku nacay tiri hadalkaas ay dhahday markay siin naxay wali wada ku sii dhigtay waxay tiri maxamed oo dil ay dhahday maxamed oo dil markay maqasho waxay tiri ma aday kula socdaan nimanka uma ka saysaa waa ka saytir waa adaan raba inaan ku dilo gabadhii naxdin laakiin meeshii intay qaateen mindi intuu maxamed soo qaato galgalay wali Nurhan intay mindidii ka qaadatay bay galgalisay saaxiibteeda qaylinayso u jeedo isaacidayso bay ka siisay way dileen markay dileen way soo bixeen kaamiraadka iyo jabsheen kaamirada markay jabiyeen waxay qaateen dahabkii iyo lacagtii maanta dhan ay aruurinayso sidoo kale bokas yar oo hadiyad ay ku jirto oo ay rabtay najla inay gabar qaraabin yihiin ay u geyso wixii dhan ay qaateen kaamiradana way jabiyeen wayna ka bixeen albaabka ka bixeen marka gabadha najla waxay leedahay saaxiibo oo xaruntan caafimaadka dhexdeeda ka shaqeeya oo waqtiga break markii la gaaro kale waqti isla qaadan jireen oo qadada kale isla qadan jireen bay lahayd saaxiibadeeda waxay dhaheen maanta najla maba aan arkin bay xilliga break markii la gaaro waxay dhaheen najla maba aan arkin maanta way soo gashay shaqada laakiin ayada bixis maba aan arkin maxaa dhacay cabaar raadiyay way soo bixeen waxay imaadeen meeshii qaybta dhaqtarka qaybtiisii imaadeen markay saas u imaadeen waxay dhaheen gabadha dhulka taala oo mayd ah ayaa dhiig ku dabaalanayso isla markii waxay wiceen askartii meesha imaaday oo waxa dilka in waxaan ka kacay fiir la maago waxa laga wadan dahab ay wadan jirtay oo dahabkii wadanin qasnad yaa la firshay waxba lacag ay ku jirin mobilkeedii oo lin askartii markii waxay fahmeen in gabadhan ma arkino
tuuga ee taa waxa meesha imaaday maadaama mobilkeedu uuna oolin lacagtii iyo dahabkii iyo waxba ay soo oolin mida kalena aysan gabadha waxba ugu xirneen dadka asxaabteeda marka waxay sheegeen in gabadha mar walba ay dahab wadan jirtay hadartaana hal dahab ma wadato saas daraadeed waxaa lahay waxa meesha soo gala waa tuugo kaamaraadkii way jajabiyeen laakiin waxay hilmaansanayeen in meel kasta ay kaamara ku xiran sida jaranjarooyinka albaabka laga baxo inta lasii socdo meelaha kasoo horjeeda meel kasta kaamara ku xirneed kaamaraadka kale taa la baaray kaamaraadka kale markii la baarana waxaa la arkay laba wiil iyo gabadhan oo isdaba socdaan oo maxay kasoo baxayaan xarunta kadibna baxeen waxaa dadkii oo meesha kala shaqeynayay Najla baa loo keenay kaamaraadka waxaa la mataqaanay sawirkan gabadhay aqoonsadeen waxay dhahan gabadhan aan naqaanaa waana saaxiibadeeda oo maxaa la dhahaa ruuxiga oo rasmiga ah bay ahayd gabadhii askartii marka xogtii markii faamiliga la gaarsiiyay dabcan iidan way maqle maahino meeshii isla markii intay oraday Facebook ee waxay soo dhigtay sawirka oo maxaa la dhahaayay Najla soo dhigtay sawirkeeda iyadoo u tacsiinayso oynayso wax yar kadib askartii markay dhamaystireen iyada u tageen 8 saac kadib loo tagay waa la soo qabtay waxaa la bas stop la daraamada inta noogu ekay waa la soo qabtay ay markaa aragtay in la haayo way qiratay waxay dhahday waa necbaa dhahday dunka u necbaa because ay dhahday wax walba wanaagsan iida haysatay anigana saas ma ahayn dhahday mid kale aniga markaan tagaynay ma rabin dhahday inaan dilno laakiin iida madax adkeeday dhahday iida dalbatay dhahday in la dilo annaga just waxaa rabnay dhahday inaan soo dhacno dabeetana waxaa rabnay dhahday inaa shaqada saa looga bariyo oo anaga shaqada booskeeda ah laakiin iida waxay dhahday wax laga xad waayo lakad soo noqotay المهم gabadhi waa la aasay Najla dadkii tuulada ee dadka xaafadooda dhan way ka wada qayb galeen hooyada waxay dhahday ilaa cadaalad rabaa ay dhahday aniga cadaalada bisa ideeqdo sidii Nurhan wiilkii Maxamed ah waxaa lagu xukumay dil toogasho ah halka wiilkii kale da'diisa way yareedaa waxaa lagu xukumay asagana xabsi daa'ina lagu xukumay halkaas lagu soo gabagabeeyay mararka qaar waxaa dhacdo inaad dhehaysid waxaan iska ilaalina qof cadowgayga ah laakiin cadowgu iyo qofka aad xambaarka ku wadatid uu yahay ama qof kuugu dhow oo aadanba ka filaynin uu noqon karo cadowgaaga marka waxaa la dhahaa saaxiibkaaga iska ilaali inta iska ilaalinaysid cadowgaaga in ka badan iska ilaali marka gabadhan saaxiibadeeda is waxba ka filanaynin wax walba u sheeganaysay nolosheeda dhan ay u sheegatay iyada waliba faamiligeeda ay leeyihiin qofkan qof fiican maan ka hardhaysay aniga gabadhan waa gabar fiican ee weednan aqoon la'aanta saa idin keenaysa ma qof ka fiican ma jiro ee dhahaysay baa sabab u noqotay in la dilo iyadoo waliba dad u soo kareysatay se ka filan gabadha kale Najla waligeed kama aysan shakin isma aysan dhihin xataa qoftan dil saaxiibadeeda cumriga beebe ka dhiganaysaba marka adoo halkaas iska fiirinaysa mararka hoos maska wuxuu ka soo bixi karaa hoostaada marka ilaaha ka magan galnay in la dad anagana saas shirqool noocaasna lagu dilo ina anaga dad shirqoolno oo ilaahay qof kale iimaanka uu naga raacsin ilaaha ka magan galnay inta fiidaan lamid ku kulmayna waxaa idinku dhaafaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh